ardayda jaamacadaha ka baxda Soomaaliya arag markay qalin jabinayaan oo jaamacad ay dhameeyaan dufcadan oo dhan meel waxay tagayaan sawirradooda dhan ay ku dhijinayaan dufcadan ayaa qalin jabinaysa xafladii qalin jabinta markaas xaflad ayaa la dhigayaa markaas Ilaahay waan qalin jabinay jaamacadii aan dhameynay waad mahadsantiin khayr Allah idin siiyo jaamacadaas kuwaas dhameeyay tirada badan meesha ku dhagan kuwa aan ka yarayn baan maalin walba intaan isku soo dhajino baan kor waxaan uga qoraynaa تعسي الله ونحرس كونه يقلن جبين مرك إلى أنت وضعنا مرك ويقلن جبين ويوضعن تعسي مرك اللي يسوي رسول واحد حقيقي ما ذانا ما اللي يسوي دينا ما له داعي إنتان حل أرادينا عد يسوي ديني سماله باش عالم كحل إلى هذا مشكلة ويفيرنايان ماشي أقول إحنا مركي مريس أي دبك يسكر راعنايان كنا ويتجايان هاي كان ويلا شرايان كنا ويلا شرايان واسدي وحين قدجن هنا وحال هوان انتو قبيب وحسوا خلافين تلو يوجع عليها إسلامه مركز سعودي وني خطر وحوري أنت تيجي ستان مدي عند بركة كتاب تعيان جعله مركز يسيجي ستين مركز سوق أنت هذي بدأ بركة كتابت مدول بس يسيد يسيب أنو يجع عليها marka dhabar kistaabashada iska daayo quraanka inoo sheego gaaladina ma jecelo inagu badaba ordayna ma ogi ilaahay wuxuu yiraahdaa antum ulaa'i wardad yahu idinkan ha antum ulaa'i idinkum ba tuhibbunahum ja'al wala yuhibbunakum laakin ayagu idin ma jecelo kuwa badaan oo inay rabin ayaa kamid ku soo baxay waxa kamid ah Barack Obama ما يقدر يبي وحكوا صوب حيله جد كي لما يجري لو مري بس تك سؤال كرسي أسوق فديل الأرك ما ده هاي إن كان مذو وايه عدان ما هي أنا لقدينا ما جرتو هل هدينا لقديو أو سيل سكوك على قل لحظة هذا ما لقى سوق بتلميه لايو وقت يسحب ما يستكل لحظة وقت يسود ما يست دور شوين كلا على برلمان كونغرس سيل لو ودي إلهان عمر صوب حذي وصومالي مرة كان كأذكي واكن إلهان عمر وحيس هيس ترى مركا gabadheen haday taraan la dagaalayso horta bal meesha aan joogno ogaadab gabar Soomaaliyeed iyo Trump ayaa facsiman oo way la dagaalaysaa asna warkiisu sheegtaa aydan warkeeda sheegataa marka dambana ardayda kala celiyo maal dhihi doona intii meesha ku dhimatay Allah u wada naxariisto kii dilay iyo kii dhintay kulli Allah u wada naxariisto inta noolna الله وضنا كل جيم مرك الله وضنا حريستنا مرك حل أيه نجرب تاعي حل كنا إسلام كوجراي إسلام كان الدين تنتان آمنه مكرجة يشرق الله لأنه مليجا لأنه وسمينا أيو دنتين إنه كوجرين قالوا سمينا يعني أنا سلام كبحنا عن ديارك الله هنا سنة لوهايو سيدي الله قبل حلا هدينا ضدك عنوني ورسين كيلنا لقيت شنين سام بالكوجراي من خير الله يسيو بريا وحاجة لالي بريا أو جات كل جوجين جري بريا جات ممكن الجوجيو اللي قفك اللي وعرك الدبرقين تقاعد كل جري والله ممنوع بريا لا وريجا ليرو وأدوك سونتين دتك واش ويا قانا جات كسول ما جوجين دتك ما راح على جات كجوجين تيسا صار دتك الدوينها كل عقابايا أيوة يقيران ولو كينا سوى لو كينا قلبتي يهبين كي أفريسان عيان ويقيران جات كل ولا جوجيات بريا اللي يقولوا وريجا وحلا جات على الوقت ويقدر صورة وقتها حلقاس يا كوا جاد لو سو قبطان لو كاني وديوان غلي انت اهايان انت جاد لو سو قبط وحالي marka faylko hala soo cadeeyo baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiyo mar kale markii kale inta la gaar xabsi markii lagu celiyay intii dawladda show kuwa kaaga way isku reerka ahaayeen hoosta laga sii daayay intii kale baadana lagu soo celiyay maxkamadii garsoore markuu yeeray hebel aaway ma joogo kuwii askartu weydii wuxuu dadkii kale aaway أنا قدومي وانسوق هذين أين ينتهي دهن أي بحثين مساسها أفهمين تقول هذا الشيخ أنا قارنه والله ونحرزه ودنتهي أنت محابيستك كلا المشي في الدنيا أي أنا سيديني يا وران توقع حي يسيني بها كاديا يديك البحث كادي ودي هذي أنت لسوق كادي لسك بحثنا عيون ما هذيك ماشي كويس أنا كادي ما يسميك أرض يديك لسوق كادي يعني دين الإسلام كأهيد وحي إلهي وحارنتني ما يقول له جيدو
hadduu markaa asaga markaas u muuqato adduunyo una uga jeedin wuxuu leeyahay inoo wada hawsha war ilaahay ma ogole ka joog mid waxa la yiri wuxuu yiri 4 naawad ka badan aan guursanaa dadkeena way dhamaadeen dagaal lagu dhamaaday si aan intii dhintay u soo gudo waa inaan 20 iyo 30 iyo meelahaas guursado waxa la kitaabka ilaahay ma ogole 4 ka badan markaas uu iga leexo kitaab ilaahay dantay moog kitaab ilaahay ma dantay koog dantay ana aqaan ma kitaab dantay يعني marka arintu ay noqoto dantayda anun ba aqaana taasi wax sax ma aha danta ilaahay ba yaqaan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ilaahay wixii aan sameyn jiray carafan soo istaagay adna waad i ogtahay anna waan is ogahay wixii xumaa aan sameynayay halkan aan ku ga toobad keenay oon dhigay ilaahay marxaati ka ahow wixii dadku ay ugu lahaayeen waan u celinayaa iafiyana waan dhahayaa dib dambana u geysan maayo kacbadaada agteeda ana ballan ku galay masaama soo dhaaya ma dharca intuu ku gasto halka uu ku joogo wuxuu leeyahay duro Facebook kala socdaa markii wax laga sheegay aan idin soo noqdo xaquba ka soo dhaaranaya maxaad noogu soo noqod nagarabta soo adigii toobad keenay ma aha yaani ka soo qabaysay ma dambiga waxay u ka dhigeen soo hadda midalan ajal marka dhageysanayso hawl yar inaad qabsato aad rabtid soo macala bows soo lama taabto dambigu bows u yar istaagsi bas bows loo dhaay bas inta maalma xaj kala joogo bows u yahay markuu ka soo laabtana meesha muu ku dhufan bowski uu ka qaadaya halkii uu ka sii wadaya idan xajki muxuu taray al hajjul mabruur ma kaas marka ko mukhayad soo galay waxa la yiri sokor iyo waxbu qabay wuxuu yiri sokorta kabariyeri wuxuu yiri sokorta haygaga soo darin waan iska mashquulsan oo ahaaye sokortii uu ku soo daray shaahina korku uga soo daray uu soo hordhigay markuu soo fiiriyay nus wax ku dhow sokor waa markaas sokor uu qabay dhiikarka ku kacay qaylo wiilkii yaraa ku qaylo wariyaa soo kuma dhin sokor haygaga soo daray maxaa sokor ku soo dartay wiilkii kama baan wuxuu yiri adeer ha ku qasinno kor le kacbis marka waxaan ka wada kiin mucaarad waxba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay Soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasinno adi meeshii la iska toosi laakiin waxa dib u heshiisiin u baahan dadka isdilaya hadda ka hor qisay waxa linaa meel uu sheekh ka aha marka sheekhani waa nin rageed maahine cilmiga ma yaqaano dadku iska waabsadaa marka laakiin mid uu imaaday maalinka dambe marti oo sheekho laakiin wax yaqaana wuxuu dadka ku wacdinaa oo leeyahay qaala ta'ala ilaahi wuxuu fankihu ma daaba lakum min an-nisaa fankihu tukada ma daaba lakum min an-nisaa mathna laba tukada oo waxa laga wadaa salaada subax iyo rubaaca iyo thulatha wa rubaaca thulathana waa maghribka wa rubaacana waa inta kale marka fankihu tukada sheekhu uu yaabay wuxuu yiri intuu la hadlo adeer ilaahay baan kugu dhaarishay ma fankihu baa tukada wuxuu yiri oo maxay tahay deeynayeen fankihu tukada maxaa lagu fasiri karaa markaas uu gartay marka meesha in la soo galay bas inuu meesha cishtan uu rabo odaygu oo fankihu tukada ay sii ahaato wuxuu yiri dadkii intuu la hadlo dhageystay ninkaas bari subax ayaan masaajidka isugu imaanaynaa waana doodaynaa qofkii cilmi la idinkaana kala saaraysiin dad dadweynatiin saddex su'aalood baan weydiinayaa hadduu saddexda aan waan ka helo oo uu yiraahdo hadduu ku jawaabo inuusan waxba aqoonin oo mid dhaalim ah oo aniga gardarhaysana inuu yahay saa uu ogaada waayahay bas meesha la sugu imaaday wadaadkiina uu imaaday haye sheekhi haddii ay ugu haysay fankihu tukada aaway waa anigu ana kugu haysay fankihu tukada ma ah markaas uu yiri su'aalan ku weydiinaya markaas uu weydii ilaahay soo ma dhihin qul huwa allahu ahad markaas uu yiri ha allahu samad soo ilaahay ma dhihin ha lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad soo ilaahay ma dhihin ha maxay tahay arbaax u dhax ku dhuftay waa isku booday marka ninka saddex mar ha ma kaga siiyay horta muxuu rabaa marka meeshu rabaa inuu qaso way isla qasantay marka dadkii waxay dhahay marka culimada kala qabta hadda kismaayo waxa ka socda waxa waay culimada kala qabta inay inoo taala marka culimada ku kala qaban lahayn baadiyaha ma ogtahay si magaalada kale ma kala laha
qolal oo ay kala seexseexdaan waalidka iyo caruurta iyo male aqal Soomaaliga la wada seexdaan kuwa ku kuusana marka aqal Soomaali dhinac ka seexda reebaadusay wax ku dhal ayaga yaqaan marka saas ay taana waxan baa la dhalaa mar ay seexdeen ilmuhu haday doonaan markaas kadib laga dhigto dib loo dhigto habeena marka ilmihii mid kamid ah oo inuu seexday loo maleeyay malaha ma buuna seexanin wuu soo jeeday waxbuu arkay markaas subaxdii yuu ku yar uga sheekay wuxuu yiri waxbaan ku tusi caawa seexanin haye istaanbay la galay ilmi istaanbay ugu jireen xilligii dambe ee xaaladu ay ahayd ayaa la gaaray kii wax ballamiyay ee hore yaa wuxuu damcay inuu kii toosiyo oo yiraahdo hawsha haday bilaabanaysa markuu damcay inuu toosiyo ayaa wuxuu yiri waryaa waan soo jeedaa indha farahay gelin indha farahay gelin niyowan hadda Soomaali xaalada ay joogto waxay tahay waa la soo wada jeedaa kuwa waxay marka dadka indha farahay geliyaan waa la iswada fahmay waxa la isku haysto waa kursigaasi seen uga heshiina intii la yiraahdo taas inagoo heshiisay dan inoo wada tahay saas ma lagu qaybsadaa ilaa laga gaaro ma soconayso